الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله maalinta adxada ah ee maalinta islaamka ugu weyna ee samadu furan tahay ee lagu amray muslimiintu inay ducaystaan ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu wixii balaayaaba inaga duwo ilaahay waxaynu ka baryaynaa dalka iyo dadka iyo diintaba inuu inoo wanaajiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ubadka iyo oryaha iyo adduunkaba inoo hagaajiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu naga ilaaliyo fitna iyo mixan iyo khalkhal intaba inuu ilaahay naga ilaaliyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa muslim buu naga dhigay oo nagu aweeye kuwii islaamka ku dhaqma ee ku dhinta ee diintu noqoto arrinta koowaad ay ilaashanayaan ee aanay aqonkii adduunka iyo dhaqaalka adduunyada ay diintooda seejiyaan intaan waxaan loo gudbeeyaa walaalayaal diinta waxaa ilaalinaya oo dowladda ilaalinaya oo booliska ilaalinaya oo baayic mushtarka ilaalinaya waa caqliga waxay nagu soo batay fasahaad caqligii xumeynaya haddii ummadii caqligii laga xumeeyo oo caqliga xumaadana diintii baa xumaanaysa dalkii baa xumaanaya adduunyadii baa xumaanaysa aakhiradii baa xumaanaysa walaalayaal waxay nagu soo batay waxa la yidhaahdo mukhaadaraad oo balaayo ah oo magacyo badan khamri leh xashiishad leh qaar kale keliin leh oo qofkii iyo mujtamacii si weyn ugu soo fasaahadaya muslimiinta somalilan degan iyo muwaadiniinta somalilan degan iyo inta somalilan jecel iyo inta aakhiradooda jecel waxaan ku waaninayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo wuu ka wen yahay in gaari gasho maalin walba waxaa aragtaan maxkamadda oo xukumaysa intaasoo khamriga waanu sii badanaya maalin walba waxaynu maqalnaa intaasoo xashishada waa sii badanaya walaalayaal waa aafo laynagu soo daayey haddaynan ku yariyo ku weyn rag iyo dumar culum iyo caamo caruur iyo ciroole haddaynaan ra'yiga intaynu qaadano aynaan ka dagaalamin war ummadii iyo da-yartii waxaa lagu soo wadaa mahlako walaalayaal maanta maxaabiista ku jirta jeelka waxaa u badan dhalinyaro mukhaadaraad ku xigan nooc kastaba ha ahaatee waa mashkalad aynu u baahan nahay in la isu taago somalilan iyo wixii aadamaha jecelba dowlad ahaan dad ahaan xataa dowlaha dariska ah in la iska wada kaashto sida la dagaalamo waxaan ku waraya maalinta ciidda ah oo ummadda somaliland ka codsanaya in dagaalka aan la galo oo mukhaadaraadka dhalinyarada lagu aafeeyey ee xaafadaba jooga ee aan dadku aada u dhaadaynin in laga wada galo oo si caqliyana loo galo culimada waajibka koowaad baa saaran intaasoo masaajid baa dalku leeyahay culimada intaa waa dhegaysanayaa idaacadda inta u badan waxaa ka baxaya tifiyada waa culimo culimadu arrintaa haystu taageen oo dadkaa ka waaniyeen oo diintii waxaa ka qabtaa sheegeen oo dagaal ka galeen waxaa la mid ah jaamacadaha iyo iskuullada iyo macallimiinta waa in dagaal ka gala arrinta ah oo carruurta lagu baraarujiyaa waxaa la mid ah madax dhaqameedka cuqaal leh odayaal leh waayeel leh waxaa dagaalkaa laga doonaya galaan dhammaan inta ilaahay aftahamada siiyey ee gabal wax ku sheega
ee hadal wax ku sheega in ummadda dhegeysato dagaalkan waxaa kowkan u galaya dowladda madaxweyne ciidamo maayaro barasaabo dhammaan waxay faran yihiin inay dagaalka ugu badan saaraan in ummadda caqliga ilaaliyo ilaahay dembigana ha dhaaf kiimaanka ha dhaaf ilaahay inaga aqbalo ducada dad muslimiina oo isogol ee islaamka iyo dalkooda shaqaysta ahla inaga helo cadowgeena rush iyo rash iyo raad u joogsa allah ka helo cadowga Soomaaliyeed ilaahay ka helo raad nabad joogsaday wasalaamu calaykum